wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiiba meel baad joogtaan si walbaad ila socotaan u diyaar garooba la socodka xibinta ilbaxnimada islaamka alxadaara alislaamiya ilbaxnimada muslimiinta waa mid caalamka u furtay dhammaan wadooyinka horumarka. قال المؤرخون لقد حقق المسلمون في 8 عام أكثر مما حقق الرومان في 8 قرون. رجع وح أخرياء وح إليه المسلمين توحي حقيقيا البحنمة يهرمر مدة 6 سنة. هل كالرومان كأيكو حقيقيا إن كبدا مدة 6 بقل أو سنة. سيدا كلام ما أنت علمي يا للدنيا وح اختراعي أو فكر كذا للمسلمين تا. ninka lagu magacaabo Robert Brevet wuxuu ku yiri kitaabkiisa The Making of Humanity ma jirto dhinac ka mid ah dhinacyada horumarka cilmiga ee reer Yurub ilaa waxa abaal ku leh ay ka soo qaateen ilbaxnimada muslimiinta. sidoo kale wuxuu yiri waxa saameyn weyn ku leh reer Yurub aqoontooda muslimiinta. dhanka kale qoraal lagu magacaabo NC Mehta wuxuu ku yiri kitaabkiisa Al-Hadara Al-Hindiyya wal-Islam islaamku wuxuu xambaarsanaa iftiin ka qaaday mugdiga dhammaan nolosha bashariyadda. islaamku wuxuu ku furtay dunida caqiido iyo fikrad taasoo ka badan intuu adeegsaday siyaasadda. mana jirto magaalo aysan saameyn ku lahayn muslimiinta. bal aan idinla wadaago qayb ka mid ah tusaalayaal kooban aan ku cadeynayo xadaarada islaamka. jaamacadaha dunida islaamka laga furay waxay ka horreeyeen jaamacadaha reer Yurub muddo 2 qarni. jaamacaddii ugu horreysay waxaa laga furay Baghdad sanadii 830 miilaadiyada waafaqsana 215 hijriyada islaamka. waxaana lagu magacaabi jiray Baytul Hikmah. waxa kaloo ku xigay jaamacadda Al-Qarnayn sanadii 859 miilaadiyada waafaqsana 245 hijriyada islaamka wadanka Maqribul Islaami. waxaa ku xigay jaamacadda Al-Azhar oo la furay sanadii 970 miilaadiyada waafaqsana 359 hijriyada islaamka. kadib waxaa muslimiinta ka qaatay ilbaxnimada iyo horumarka reer Yurub ayagoo furtay jaamacado ku shaqeeya manhajka muslimiinta. jaamacaddii ugu horreysay Yurub waxaa la furay sanadii 1090 miilaadiyada ahdigii boqorkii la oran jiray Roger Athani. jaamacaddaas oo fikradda ka qaadatay muslimiinta. waxaa ku xigay jaamacadda Padova oo laga furay dalka Talyaaniga sanadii 1222 miilaadiyada. waxaana jaamacaddaas lagu dhigi jiray kutubta muslimiinta. daawade inta haynoo joogto intaan kulankan ku kulmi doono.